caawa waxaan halkan hambalyo uga dirayaa wasiirka cusub Soomaaliga ee dalka Canada la yiraahdo Axmed Xuseen, wasiirka immigrationka, refugeega iyo citizenshipka ama wasiirka socdaalka qaxootiga iyo dhalashada ee dalka Canada oo ah wasiirkii asalkiisu Soomaaliya ay ugu horeeyay ee dalka Canada wasiirka noqda. Axmed waxaan leeyahay hambalyo oo kugu hambalyeynayna mas'uuliyadda cusub ee wadanka Canada lagu doortay golihiisa baarlamaanka kadibna golaha wasiirada aad ka mid noqotay. waxaan leenahay hambalyo oo kugu hambalyeynayna arintaas farxadeedana dadka Soomaalida meel kasto ay joogaan ayaan qowmiyadda Soomaalida meel kasto ay ku nool yihiin ayaan la wadaagaynaa, adigana waa kula wadaagaynaa farxadaas adiga iyo qoyskaagaba. waxaan idin leenahay hambalyo. dadka reer Canada ee Soomaalida ah iyo kuwa aan Soomaalida asalkoodu ahayn ee ku doortayna waxaan leenahay ayaguna hambalyo ayaan leenahay oo aad ugu jirto baarlamaanka iyo golaha wasiirada intaba. waxaan ku rajaynaynaa guul iyo xilka lagu doortay lagu magacaabay in Ilaahay ku guuleeyo kuna fududeeyo hawshaada. hambalyo Axmed, mar kale hambalyo.